mas-uuliyiinta gobolka saaxil ayaa waxa ay casho sharaf u sameeyeen wafdi ka socday Jarmalka oo muddooyinkan ku sugnaa deegaanadaasi. Qadar Xeefo ayaa warkan magaalada Berbera nooga soo diray. Maamulka gobolka Saaxil iyo degmada Berbera ayaa habeenkii xalay casho sharaf ku maamusay wafdi ka socda dalka Jarmalka oo maalintii shalay soo gaadhay magaalada Berbera. Ugu horreynna badhasaabka gobolka Saaxil Injineer Axmed Cismaan Xasan ayaa wafdiga uga warramay Soomaaliland iyo nabadda ka jirta. mar labaad waxaan idinku soo dhaweynaynaa gobolka Saaxil. waxaan leenahay soo dhawaada gaar ahaan degmada Berbera. Gamca furan baan idinku soo dhaweynaynaa adiga iyo wafdigaaga aad wadataba. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad nagu soo buuqato gobolkeegii. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad aragto maxaan ku raad nabadgelyada oo gobolka ku sugan yahay aragto. waxaan aad ugu faraxsanahay inaad saacada doonto meesha doonto mari karto si xor aad u mari karto. alxamdulillah oo ilaahay maxaan ku raadayay nabadgelyada siiyay. ilaahayna aan ugu mahad celinayno. waxyaabihii markii aad maxaan ku halka joogtay iyo imika inay ku kala duwan yihiin baan u maraynayaa ama meelo badan oo soo aragtay ama fikirkii markii hore aad aaminsaneed iyo ka imika aad aragtay inay ku kala duwanaanayaan. saacada imika aynu joogno hadda aad u baahato caawa inaad Hargeysa tagto si nabadgelyo ayaad ku tagi doontaa. aad iyo aad baan idinku mahad celinaynaa mar labaad iyo mar saxaad. wakiilka u qaabilsan arrimaha Afrika ee dalka Jarmalka ayaa ay uga mahad celiyay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera iyo gobolka Saaxilba. It's too difficult for me. Thank you very much to all of you, Mr. Governor, the Mayor. Thank you very much for this very, very warm welcome here in Berbera. Yesterday, already on the airport in Hargeisa, we arrived in Somaliland as a German delegation, and together with our implementation agency, GIZ, and Development Bank, KfW, we are doing here a lot of interesting projects, and I have heard that you are satisfied with that, and we should intensify our cooperation. And I cannot promise anything, but I will say I'm very convinced of your hospitality, your very, very tough engagement for the development here in Somaliland, and also your serious efforts to ensure security for everyone. And that is very important to be here in this region and feel very protected and very. Qadar Maxamuud Axmed, Qadar Xeefo, telefishanka caalamiga ee Kalsan, magaalada Berbera.